السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن وقصة أول شير انترناشنال ومركله هي برنامج كاني أسبوع لها هاي إن كجها اللي جرني محاكو عصب كوفيد 19 كه إنه كلا ورقة هذا جرني إن ما توحن إذن هاي نار دور قضب إن أو مهمة دور قضب إن لو ذاك دونا نمبر 1 تطبيقات كان waxaan idin la wadaagi doonaa oo soo kordhay 8 usbuuc waxa socon doona state fairkii oo dadka siin doona vaccinationka waxa kale oo idin la wadaagi doonaa virus cusub oo la yiraahdo covid variant waxa kale oo isna aynu falanqayn doonaa oo inagu cusub applicationka kirada oo dadka laga caawin doono waxa kale oo aynu ka hadli doonaa talaalkii Janssen oo number 4 waxa kale oo aynu ka hadli doonaa number 5 Pfizer oo ay qaadan doonaan da'dooda la cayimay aan ku bilaabay waxa aynu hore ugu sii socon doonaa barnaamijkeeda waxaanu bilaabi doonaa number 1 8 usbuuc ee soo socda waxa bilaabmi doona state fairkii oo dadka u diyaariyay inuu siiyo talaalka tani waxay sahlaysaa inuu qof waliba talaalka qaato goobtan waxaa la keenay ilaa iyo 168,000 oo xabo oo talaal oo la rabo in la siiyo dadka ugu yaraan goobtan waxaa loogu talagalay inay yimaadaan 100,000 oo qof oo aan iyagu qaadan talaalka gobolka Minnesota taasina waxay u sahli doontaa in ay ku tagaan bilaa ballan oo aan wax ballan haba yaraatee looga baahnayn dadka had iyo jeer ay caqabad ku ahayd inay muxuu ahaayay ballan samaystaan ama waqtiyadooda uusan suuragal u ahayn inay appointmentka ama ballantu waxa meesha kugu diyaarada dad Soomaali ah oo ka caawin doona hadiiba aad u baahan tahay turjumaan waxa kale oo laga caawin doonaa wax kasta oo si aad u hesho vaccine-ta qodobka labaad number 2 oo aan ka hadli doonaa waxa weeyaan virus cusub oo la yiraahdo covid-19 variant covid-19 variant-ku waa virus cusub oo inagu cusub oo Minnesota si xun ugu faafaya oo isagana u baahan in bulshadu ka digtoonaato waaxda CDC iyo MDH labaduba ay ka digeen inuu si halis ah ugu fidayo gobolka si halista viruska aynu uga badbaadno waxaanu sii wadaynaa xirashada maskiga iyo sanitizerka iyo dhammaan wixii protectionka inoo ahaan jiray oo aynaan marnaba iyaga ka daalahaynin oo aan la joojinahaynin taasi waa taa waxa kale qodobka saddexaad ee aan rabo maanta inaan halkan kaga hadlo oo aynu ku yara falaqayno isagana waxa weeyaan kirada dad badan baa jira oo muxuu ahaayay aan kirada iska bixin karin dadyowga aan kirada iska bixin karin waxaa jira application cusub oo loogu talagalay dadka aan kirada iska bixin karin dadyowga waa inay soo apply gareeyaan marka hore waxay qaadanaysaa 7 ilaa iyo 14 cisho application-kaaga inta la process gareynayo waxa lagaga baahan yahay requirement marka hore waa inaad booqataa application-ka ama rantiga si aad u ogaato muxuu ahaayay inaad eligible tahay ama xaq aad u leedahay inaad buuxin karto marba haddii waxa waa inaad waxyaalo badan baa lagu weydiin doonaa sida tax return-kaagii hore waxaa lagu weydiin doonaa waxyaalo fara badan macluumaad fara badan haddii aad u baahan tahay in laga caawiyo application-ka fadlan waxaad soo bixi kartaa hotline-kayga xagga hoosan kusoo qori doonaa muxuu ahaayay waxa kale oo aan rabaa in aan halkan maanta aynu kaga wada hadalno talaalkii Janssen number 3 waxaan ka wada hadli doonaa dad badan baan soo weydiiyay talaalka Janssen waxaan u jeedaa number 4 sorry waxaan ka hadli doonaa dad badan baa waxaan soo weydiiyeen Janssen haddii aan qaadanay dhibaato ma nooga iman kartaa haddii aanu haysano ballan Janssen ma bedelan karnaa oo ma u bedelan karnaa Moderna ama Pfizer ama kuwa kale wax dhibaato ma nooga imanayaan su'aalo noocaas ah nagaga yimaada bulshada u baahan inaan ka jawaabno haddaba si aynu uga jawaabno arrimahaas oo dhan waa in aynu tallaabooyinkan soo socda wada qaadnaa sidaad la socotaanba wuxuu ahaayay
stateku waxa uu ka digay halista qaadashada Johnson & Johnson haddii aad qaadatay waa inaad oo aad u ballansanayd waa inaad joojisaa dhakhtarkaagana ama healthcare providerskaagana u sheegtaa in la joojiyey oo ay si ay kuugu bedelaan labada kale ama Moderna ama Pfizer haddii aad hore u qaadatay bil ka hor waa caadi waa okay wax dhibaato kaagama imanayaan oo ilaa hadda aanad arag wax dhibaato haddii muxuu haayay ay ku balansan tahayna waa inaad balanta iska joojisaa oo aad ku bedelataa labada talaale kale ama Moderna ama Pfizer stateku waxa uu diyaar u yahay inuu sii wado inuu dadka ku dhiirigeliyo inay istalaalaan tan wuxuu haayay ta ugu dambaysan rabo inaan maanta ka hadlo waxa weeyaan Pfizer-ka vaccine-ta oo loo cayimay number 5 oo ah kii loo cayimay dad da'doodu ay tahay 16 jir ama 16 years old iyo 17 jir ama 17 years old dadyowga ay da'doodu u dhaxayso ay tahay 16 iyo 17 waxaa la rabaa in ay qaataan Pfizer oo keliya looma ogola in dawooyinka kuwa kale ay qaataan waxa keliya oo loo ogol yahay inay qaataan Pfizer waxaana muxuu haayay go'aan ka soo baxay state-ka oo muxuu haayay ay tahay in sida ugu dhaqano maanta intaasay ku eg tahay update-keennii ama muxuu haayay wixii ku saabsanaa toddobaadkan maxaa cusub iyo COVID-19-ka aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you for watching anigoo ah Cabdiraxmaan oo ka socda Walshare waxaan idinka mahad celinayaa sida tooska ah noogu xidhan tihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin thank you very much maalin wanaagsan have a good day guys